Assalaamu calaykum. Soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeena maanta oo ah mid horodhac ah waxaan ku soo qaadanaynaa filimka caanka ah ee Spider-Man. Spider-Man waa filim taxane ah oo isugu jira qiyaali iyo majaajilo superhero ah. Wuxuuna ka mid yahay filimada adduunka loogu jecel yahay waxaana qoray laba filim qoraa oo kala ah Stan Lee iyo Steve Ditko. Filimkan ayaa laga metelay qof u duulaya sida cayayaanka loo yaqaan caara-caarada. Ra'yiga filimkan ayaa dhashay kadib markii mid ka mid ah qorayaasha filimkan uu arkay cayayaan ku socda derbiga wuxuuna ku fakaray haddii uu jiri lahaa qof awooddaas oo kale leh. Wuxuuna sidaas ku alifay filimka Spider-Man. Filimkan ayaa markii magaca loo bixinayay waxaa qoraha ku dhashay magacyo badan oo kala duwan sida Mosquito Man, Insect Man, waxaana markii dambe loo bixiyay magaca caan baxay ee Spider-Man. Filimka Spider-Man waxaa samaysay shirkadda filimada samaysa ee loo yaqaan Marvel. Filimkan waxaa markii hore naqshadeeyay Jack Kirby kaasoo hore u soo naqshadeeyay filimaan badan oo uu ka mid yahay filimka Captain America. balse uu ku guuldaraystay waxaa markii dambe naqshadeeyay Steve Ditko oo sameeyay muuqaalka u gaarka ah filimkan isagoo u ekeysiiyay sida caara-caarada. Filimkan ayaa markii ugu horeeyay masraxa ka soo muuqday sanadku markuu ahaa 1962 wuxuuna ku socday wiil dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Peter Parker kaas oo ahaa agoon la nool adeerkiis ayaa waxaa qaniinaysa caara-caaro waxaana ka dhalatay qaniiyada caara-caaradaas in Peter Parker uu yeesho awood xad dhaaf ah xawaaro saa'id ah iyo awood u gooniyo uu ku fuuli karo darbiyada sida caara-caaradana ugu socon karo wuxuuna sidaas ku noqday superhero. Filimkan oo la casriyeeyay ayaa soo kala baxay waqtiyo kala duwan sida Spider-Man 1 oo soo baxay 2002, Spider-Man 2 oo soo baxay 2004 iyo Spider-Man 3 oo soo baxay 2007 waxaana director ka ahaa Sam Raimi. Filimka Spider-Man waxaa soo kala metelay atoorayaal kala duwan oo caan ah sida Tobey Maguire, Andrew Garfield, Tom Holland iyo kuwa kale. Waxaase ugu caansan Tobey Maguire oo ku jilayay magaca Peter Parker. Filimka Spider-Man oo noqday mid taariikhda galay ayaa soo xareeyay dakhli aad u tiro badan iyadoo aktarka filimkan uu marar badan ku guuleystay abaalmarino kala duwan oo ay ka mid tahay Academy Awards.